kusoo dhawow qaraax tiyub fadlan subscribe dheh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale. 5 ciyaaryahan ayaan dalbaday ilaa iyo hadda lama keenin muddo bil ah ayay qaadatay sheekadaasi. Jose Mourinho ayaa ku kacsan maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Manchester United. khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay tababare Jose Mourinho iyo maamulka sare ee kooxda kubadda cagta Manchester United Edward Ward. Mourinho ayaa dalbaday in loo keeno ciyaaryahano muhiim ah kuwaas oo caawin kara kooxda, balse wuxuu sheegay dalabkiisa inaan waxba laga soo qaadin. Mo ayaa aad u carooday markii Manchester United 4 gool daray kala kulantay Liverpool, sidaa darteed wuxuu sheegay ilaa iyo hadda in kooxdiisa aan loo keenin ciyaartooyda uu dalbaday. tababaraha reer Portugal oo inta badan uu ku caanbaxay 3 sano kaliya inuu joogo kooxda ayaa hadda qaadanaya sanadkii 3aad ee Manchester United, waxaana sheekada u muuqataa inay khilaaf ku socoto. Edward Ward ayaa ka gaabsaday in mar kale Manchester ay lacag badan ku qarash gareyso suuqa kaliibsiga, iyadoo kooxda hadda ay joogaan ciyaaryahano tiro badan balse u baahan in la kala maareeyo. Mourinho ayaa ku dooday inaan loo sameeynin waxyaabaha uu dalbaday, wuxuuna saxaafadda u sheegay waxaan loo baahnayn sababtoo ah wuxuu aflagaadeeyay taageerayaasha Manchester oo uu sheegay haddii isaga uu taageero ahaan lahaa inuusan lacag u dhiibi lahayn si uu u daawado ciyaartooyda sidaas oo kale ah. marka laga reebo ayuu yiri Sanchez, inta kale ilaa ay hadda kama mid ahan liiskayga, ma ahan safkayga, mana ahan tiimkayga ayuu yiri tababare Jose Mourinho. khilaafkan soo kala dhexgalay Mourinho iyo waliba Edward Ward waxa uu caddeyn u yahay in Manchester United ay xaalad adag ku bilaaban doonto xilli ciyaareedka cusub ee bilaaban doona. waad ku mahadsantahay daawashada videogan, fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad subscribe. mahadsanid.